Ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Ceeldheere ee gobolka Galgaduud oo sanado badan ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Qabashada Ceeldheere ayaa waxaa xaqiijiyay Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur oo sheegay in si nabad ah ay kula wareegeen ciidamada. Waa magaaladii saddexaad oo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug oo ay ciidanka dowladdu ka qabsadaan Al-Shabaab muddo 2 maalin gudahood ah. Ciidanka dowladda ayaa sidoo kale shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo Haradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Mudug. Wasiirka Gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa dhalinyarada weli ku jirta ururka Al-Shabaab ugu baaqay inay ka soo baxaan kooxda. Dhinaca kale, isla kooxda khawaarijta Al-Shabaab ayaa saaka weerar khasaare nafeed dhaliyay ku qaaday saldhig ay militariga dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ilaa 75 kiiloomitir waqooyi ka xiga Muqdisho, halkaasi oo ka dhacay dagaal xooggan. Weerarkan ayaa Al-Shabaab ay u adeegsadeen qaraxyo iyo maleeshiyaad weerar ah waxaana iska caabiyay militariga sida uu sheegay taliyaha militariga Soomaaliya Genaraal Odowa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda. Militariga Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab ayaa warar iskhilaafsan ka soo saaray khasaaraha dagaalkii halkaasi ka dhacay. Taliyaha militariga Genaraal Odowa ayaa xaqiijiyay dhimashada 5 askari. Dadka dhintay waxaa ka mid ah sarkaal sare oo lagu magacaabi jiray Korneel Abshir. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalku ay ku dileen 21 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarka ay ciidamada dowladda ku gaarsiiyeen khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo gaaraya ilaa 63. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashadooda. Weerarkan ayaa imaanaya iyada oo kooxda Al-Shabaab horey looga saaray inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan maamul goboleedka Hirshabelle markaan dhahno bariga Hiiraan.